tani waa warbixin uu baahiyey waryo u dhashay dalka Masar oo lagu magacaabo Saber Mashhuur waxa uu ka hadlayaa xaaladda Soomaaliya si gaar ah waqtigan doorashooyinka qaybin uu sheegay in la doonayo in loo kala gooyo Soomaaliya waxa kale oo uu ka sheekaynayaa qorshayaasha dawladaha Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil ay la damacsan yihiin Soomaaliya warbixinta oo hay mid dheer oo muuqaal uu ka sameeyay kuna baxaysay afka Carabiga ayaan dib ugu turjunay afka Soomaaliga waxaan xoogga saarnay qaybaha ugu muhiimsan ee macluumaadka ku jira warbixinta waxaana uu ku bilaabay مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في هذه الحلقة داوديال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا حلقدان aan ku qaadaa dhigi doono qorshaha sirdoonka Imaaraadku ay ku doonayaan in khilaaf iyo dagaal ay kaga huriyaan Soomaaliya waxay ku sugnayd daruuf adag taasoo aan ka hadli doono madaxweynaha Soomaaliya waxa la dhahaa Farmaajo madaxweynahan waxa dhammaaday muddo xileedkiisa sharciga ahaa kooxaha mucaaradku waxay soo saareen war-saxaafadeed waxa lagu sheegay inaysan ictiraafsanayn Farmaajo inuu yahay madaxweynaha waxa kale oo lagu sheegay in la sameeyo golaha kumeel gaarka sida Liibiya iyo Xaftar oo kale ama sida Suudaan iyo Yemen waxa ay sheegeen in firaaqda Suuriya uu jiro Farmaajona madaxweyne ma ahan kaalaya mar kale arintan kaalaya aan fiirinay qorshahan iyo saldhigga Turkiga ee Soomaaliya waa wadan Carbeed ee ugu dhagan xagga diinta Islaamka waa wadan Carbeed ee loogu xifdin og yahay Quraanka kaalaya isla fiirinay jariirada Sacuudiga laga leeyahay kaalaya aan isla eegno waxa lagu sheegay mucaaradka Soomaaliya waxay diidan yihiin in Farmaajo yahay madaxweyne kani waa madaxweynaha Soomaaliya inuu xun yahay iyo in wanaagsan yahay Allah og Al Jazeera waxa lagu sheegay sidoo kale in Farmaajo uusan loo ictiraafsanayn madaxweyne waxay soo saareen bayaan ay ku sheegeen in Farmaajo aysan u aqoonsanayn madaxweyne muddana aan loogu dari karin tani waxay timid kadib markii Farmaajo iyo madaxda isteediyada ama dawlad goboleedyada shanta ah si fiican ugu fiirso in Soomaaliya la kala jarjaro ayaa la rabaa waxay midowga musharaxiintu ugu yeereen in la dhiso golo ku meel gaar ah waxaad si fiican isha ugu fiijisaan shanta maamul ama shanta gobol tani waa qorshe socda oo loo ogol leeyahay in Soomaaliya laga tirtiray qariirada ayuu ku yiri warbixintiisa وفشلت حكومة فرماجو في مقدشيو وزعماء ولايات الصومال الفيدرالية الخمس ركز كده في عبارة ولايات الصومال الفيدرالية الخمس هنعود لها لأن ده مخطط Farmaajo wuxuu ugu yeeray madaxweynayaasha dawlad goboleedyada si fiican u fiiri madaxweynayaasha dawlad goboleedyada wada hadal 15 bisha Febraayo المهم خلال بحثي على جوجل وجدت ادي صحيفة العين الإماراتية kadib markaan baaritaan sameeyay waxaan helay saxiifada Al-Ayn oo laga leeyahay Imaaraadka Carabta nuqul ay qortay ciwaankeedu waa 4 sano oo xukun ah sooyaalka madow ee Farmaajo sirdoonka Imaaraadka Farmaajo waa ay ka soo horjeedaan website-ka Al-Ayn ee Imaaraadka laga leeyahay qoraalkeeda waxa kale oo ciwaan looga dhigay ismoosiinta Farmaajo ee rabitaankiisa inuu ku darsado kutumashadiisa dastuurka iyo isku dhijintiisa kursiga وهذه فكرة إسرائيلية in la dhaho waxa la sameeyaa golo ku meel gaar ah waa fikrad Israa'iileed oo waxaysiyo qof la yiraahdo Amzi Bishara تعالوا حضراتكم نشوف اللي بيحصل في الصومال عشان نعرف المخطط للأسف اللي هو بينفذ في الصومال حاليا انظروا arinta kale soo dhawaada aan tusinay sida loo rabo in Soomaaliya loo kala jarjaro tanina waa qariidada Soomaali weyn intaas waxa goostay Kenya Ethiopia waxay goosatay inta oo loo yaqaan Ogaden Francisco waxa ay Soomaaliya ka jartay Djibouti Soomaaliya intaas baa soo hartay dagaal sokeeye ayay Soomaaliya ka rideen waxa dhacday inay soo ifbaxday gobol lagu magacaabay Somaliland iyo mid kale oo la dhaho Puntland bal miyaad suuraysan kartaan wadankan Soomaaliya oo isku diin ah isku luuqad isku asal ah isku dhaqan in loo kala jarjaro saddex qaybood saddexda laguma ekayne waxa la yiri federaal baa la idinka dhigayaa waa la sii qaybiyay ujeedadu waa in gobolka saa noqdo dawlad yar sida Djibouti oo kale oo xataa ay adag tahay in qariirada si fiican aad uga dhixaragtid si dhaba tani waa xaaladii sida ay ku burburtay Andalus ka hor inta aysan gabi ahaan burburin markay burburi rabtay Andalus
waxay u kala qaybsantay 21 dowladood oo yaryar. Soomaaliyey markaad waddanka saa u qaybinaysaan, Ethiopia qaybtaas bay qabsanaysaa, Kenyana qaybtaan, Soomaaliya waa u sii yaraanaysaa, waa u sii rifmaysaa, waana sii googo'aysaa. warbaahinada idaacadaha websaydyada baraha bulshada aad ku wada xiriirtaan ee lagu soo jeediyay Soomaaliya ayaa maalgeliya. haddii aan maciinsanno khibradeenna aan dibna u milicsanno wixii ka dhacay Yaman, Masar iyo Suudaan, waxaa noo soo baxaya sirdoonka dowladaha khaliijku inay ku lug leeyihiin. fiiriya Imaaraadku waxa uu ka sameeyay Yaman, run ahaantii arrintan waa arrin khatar ah. markaad aragtid iclaamka Imaaraadka oo farmaajo maagaya, waxaa laga yaabaa in farmaajo uu fiican yahay ama xun yahay, anigu ma aqaan. laakiin waxaad ogaataa Imaaraat inay Soomaaliya ku sii wado meel ka sii xun meesha ay hadda joogto. يعني بالضبط كده زي رب هادي منصور رئيس اليمن ده، هو رجل سيء بس الإمارات عاوزة ما هو أسوأ. fiiriya Haadi Mansuur waa nin xun, laakiin Imaaraadka meeshaas meel ka sii lidata ayay la doontay Yaman. fiiriya xaaladda macaluuleed ee ka jirta Yaman. Soomaaliya ma ahan waxa Facebookga lagu qoro ee been abuurka ah. Soomaaliya waa dad xadaarad leh oo dhowrsoon, waxaana laga shaqaynayaa in qariirada laga saaro. marka shacbiga Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inay midoobaan. waxaan idin rajaynayaa in waddankiina aad xifdisataan, Soomaali weyntu ay soo noqoto, ayuu ku gabagabeeyay warbixintiisa oo dheerayd kana koobnayd 17 daqiiqo, laakiin aan ku soo koobnay qaybaha ugu muhiimsan kadib markii dad badan oo Soomaaliyeed ay nala wadaageen ayna jeclaysteen afkeena Soomaaliga dib loogu turjumo. tani waa warbixin uu baahiyey wariye u dhashay dalka Masar oo lagu magacaabo Saber Mashhuur. waxa uu ka hadlayaa xaaladda Soomaaliya si gaara waqtigan doorashooyinka, qaybin uu sheegay in la doonayo in loo kala gooyo Soomaaliya. waxa kale oo uu ka sheekaynayaa qorshayaasha dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil ay la damacsan yihiin Soomaaliya. warbixinta oo ahayd mid dheer oo muuqaal uu ka sameeyey kuna baxaysay afka Carabiga ayaan dib ugu turjunnay afka Soomaaliga. waxaan xoogga saarnay qaybaha ugu muhiimsan ee macluumaadka ku jira warbixinta, waxaana uu ku bilaabay. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة. daawadayaal, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ku soo dhowaada xalqadan aan ku qaadaa dhigi doonno qorshaha sirdoonka Imaaraadku ay ku doonayaan in khilaaf iyo dagaal ay kaga huriyaan Soomaaliya. Soomaaliya waxay ku sugnayd daruuf adag, taasoo aan ka hadli doono. madaxweynaha Soomaaliya waxaa la dhahaa Farmaajo. madaxweynahan waxaa dhammaaday muddaxileedkiisa sharciga ahaa. kooxaha mucaaradku waxay soo saareen war-saxaafadeed. waxaa lagu sheegay inaysan ictiraafsanayn Farmaajo inuu yahay madaxweynaha. waxaa kale oo lagu sheegay in la sameeyo golaha kumeel gaarka sida Liibiya iyo Xaftar oo kale, ama sida Suudaan iyo Yaman. waxa ay sheegeen in firaaqda Suuriya uu jiro, Farmaajona madaxweyne ma ahan. kaalaya mar kale arrintan. kaalaya aan fiirinay qorshahan iyo saldhigga Turkiga ee Soomaaliya. Soomaaliya waa waddan Carbeed ee ugu dheggan xagga diinta Islaamka. waa waddan Carbeed ee loogu xifdin og yahay Quraanka. kaalaya isla fiirinay jariirada Sacuudiga laga leeyahay. kaalaya aan isla eegno waxa lagu sheegay mucaaradka Soomaaliya waxay diidan yihiin in Farmaajo yahay madaxweyne. kani waa madaxweynaha Soomaaliya. inuu xun yahay iyo inuu wanaagsan yahay Allah og. Al-Jazeera waxaa lagu sheegay sidoo kale in Farmaajo uusan loo ictiraafsanayn madaxweyne. waxay soo saareen bayaan ay ku sheegeen in Farmaajo aysan u aqoonsanayn madaxweyne muddana aan loogu dari karin. tani waxay timid kadib markii Farmaajo iyo madaxda isteediyada ama dowlad goboleedyada shanta ah si fiican ugu fiirso in Soomaaliya la kala jarjaro ayaa la rabaa. waxay midowga musharaxiintu ugu yeereen in la dhiso golo ku meel gaar ah. waxaad si fiican isha ugu fiijisaan shanta maamul ama shanta gobol. tani waa qorshe socda oo loo ogol leeyahay in Soomaaliya laga tirtiro qariirada, ayuu ku yiri warbixintiisa. وفشلت حكومة فرماجو في مقديشيو وزعماء ولايات الصومال الفيدرالية الخمس. ركز كده في عبارة ولايات الصومال الفيدرالية الخمس، هنعود لها لأن ده مخطط. Farmaajo wuxuu ugu yeeray madaxweynayaasha dowlad goboleedyada si fiican u fiiri
madaxweynayaasha dowlad goboleedyada wada hadal 15 bisha Febraayo. المهم خلال بحثي على جوجل وجدت ادي صحيفة العين الإماراتية. kadib markaan baaritaan sameeyay waxaan helay saxiifadda Al-Ayn oo laga leeyahay Imaaraadka Carabta nuqul ay qortay. ciwaankeedu waa 4 sano oo xukun ah. sooyaalka madow ee farmaajo. sirdoonka Imaaraadka farmaajo waa ay ka soo horjeedaan. website-ka Al-Ayn ee Imaaraadka laga leeyahay qoraalkeeda waxa kale oo ciwaan looga dhigay ismoosiinta farmaajo ee rabitaankiisa inuu ku darsado kutumashadiisa dastuurka iyo isku dhijintiisa kursiga. وهذه فكرة إسرائيلية in la dhaho waxa la sameeyaa golo ku meel gaara waa fikrad Israa'iileed oo waxaysiyo qof la yiraahdo Amzi Bishara. تعالوا حضراتكم نشوف اللي بيحصل في الصومال عشان نعرف المخطط للأسف اللي هو بينفذ في الصومال حاليا. انظروا arrinta kale soo dhawaada aan idin tusinay sida loo rabo in Soomaaliya loo kala jarjaro. tanina waa qariidada Soomaali weyn. intaas waxa goostay Kenya. Ethiopiana waxay goostay inta oo loo yaqaan Ogaden. Faransiisko waxa ay Soomaaliya ka jartay Djibouti. Soomaaliya intaas baa soo hartay. dagaal sokeeye ayay Soomaaliya ka rideen. waxa dhacday inay soo ifbaxday gobol lagu magacaabay Somaliland iyo mid kale oo la dhaho Puntland. bal miyaad suuraysan kartaan waddankan Soomaaliya oo isku diin ah, isku luuqad, isku asal ah, isku dhaqan in loo kala jarjaro 3 qaybood. saddexdaa laguma ekayne waxa la yiri federaal baa la idinka dhigayaa waa la sii qaybiyay. ujeedadu waa in gobolka saa noqdo dawlad yar sida Djibouti oo kale oo xataa ay adag tahay in qariirada si fiican aad uga dhexaragtid. si dhaba tani waa xaaladii sida ay ku burburtay Andalus ka hor inta aysan gabi ahaan burburin. markay burburi rabtay Andalus waxay u kala qaybsantay 20 dawladood oo yaryar. Soomaaliyey markaad waddanka saa u qaybinaysaan Ethiopia qaybtaas bay qabsanaysaa. Kenyana qaybtaan. Soomaaliya waa u sii yaraanaysaa. waa u sii rifmaysaa. waana sii googo'aysaa. warbaahinada idaacadaha website-yada baraha bulshada aad ku wada xiriirtaan ee lagu soo jeediyay Soomaaliya ayaa maalgeliya. haddii aan maciinsanno khibradeenna aan dibna u milicsano wixii ka dhacay Yemen, Masar iyo Suudaan waxa noo soo baxaya sirdoonka dawladaha Khaliijku inay ku lug leeyihiin. fiiriya Imaaraadku waxa uu ka